waxaa galabnimadii shalay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag si ballaaran loogu soo dhaweeyay gudida guud ee beelaha Habarjeclo oo muddooyinkii u dambeysay safar ku marayay deegaanada ay degto beeshaasi. Cuqaal, odayaal iyo qaar ka mid ah murashaxiinta deegaanka ayaa kaga hortagay duleedka galbeed ee magaalada. Xubno ka mid ah cuqaashii iyo waxgaradkii soo dhaweynayay oo halkaasi ka hadlay ayaa gacmo furan ku soo dhaweeyay gudida. dhinaca galbeed ee degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxaan ku soo dhaweynaynaa anagoo ah salaadiintii, cuqaashii, waayeelkii iyo waxgaradkii beesha degta galbeedka gobolka Sanaag ama beesha Habarjeclo. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa guddigii guud waxa maraya gudoomiye ku-xigeenkii, xogiyihii guud iyo dhammaan xubnihii oo dhan. waxaan leenahay gudida gacmo furan ku soo dhawaada, gobolka Sanaag ku soo dhawaada, degmada Ceerigaabo ku soo dhawaada. halkan waxa weeye dacalkii ugu kooneeyay ee ay beesha Habarjeclo degto ala guntana ka soo bilaabaysaan haddaan safar meel kale ku soo marin. waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan. kan waxa sida la sheegay aan ku soo dhaweynaynaa waanu leenahay soo dhawaada guddigii Habarjeclada guud ee fadhigeedii saldhigeedu ahaa Burco ayaanu halkan ku soo dhaweynaynaa. waxaanu leenahay soo dhawaada, aad iyo aad baanu idin soo dhaweynaynaa. waa soo dhaweynuun hadeer waxaanu halkaaynu aanu hadeer idinku yeedhnay waa soo dhaweyn sidaa in cari sheegay waa koonihii Habarjeclada waa halka ugu dambeysay bariga Habarjecladii ugu dambeysay weeye. haddii aana soo booqateen aad iyo aad baanu annaguna idinku mahadnaqaynaa, idiinna soo dhaweynaynaa. gurigiinni ku soo dhawaada. wixii waraga kale dee waxaynu yeelanaynaa fadhi kaasay inoo ahaanaysaa. hadeer waa soo dhaweyntii gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa. sidaa la sheegay meeshu dee waa bariga koonihiisii, Habarjeclo koonaheedii. wixii wara markaasaynu kala qaadan doonnaa. Habarjeclo ilaa galbeed ilaa mid halkan soconaysa ilaa xiis xaragona insha Allah gaari doonto aan ugu soo dhaweyn doono. waan buu si filaynay waa naga raagteen insha Allah. shirar ballaaran baa idin diyaara oo meel walba goob walba ah goortan maqrib halka ku soo beeganteen. waxa weeye gobolku waa gobolkiinii aad baan idinka soo dhaweynaa, waa idin sugayay. iminkana hadalku waa iska soo kooban yahay. nabadgelyaanu qabnaa, idina wadi soo dhaweynaynaa. waa ku faraxsannahay socodkiina iyo imaatinkiinaba iyo salaantiinaba waa ku faraxsannahay. gudoomiyaha gudida Garaadaga Cabdisaaq Salaad Faarax iyo ku-xigeenka gudidaasi Cismaan Xirsi Jaamac oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka mahadnaqay soo dhaweyntan loo sameeyay. wax kaloo noo yaala ma jira ilaa inaanu ka mahadnaqno soo dhaweynta ballaaran ee ay waayeelka, cuqaasha, aqoon-yahanka, xildhibaanada reer Ceerigaabo isku duuman inagu soo dhaweeyeen ee beelaha Habarjeclo. aad iyo aad baanu uga mahadnaqaynaa. way ku mahadsan yihiin iyagoo magaalada meel u jirta 20 kiiloomitir naga hor yimi. waa sharaf, wayna karaameen, wayna sharfeen, way ku mahadsan yihiin. wixii warara gaargaara iyo guud ahaanna waanu ka wada shiri doonaa insha Allah. hawlo badan oo yaala waanu iska waraysan doonaa insha Allah. khayr iyo barwaaqo idin rajaynayaa dhammaantiin. aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta aad noo samayseen ama Habarjeclada Ceerigaabo oo isku dhan aanu la kulanno oo aanu intoora u soo soconnay. anagu waxaanu nahay gudidii guud ee Habarjeclo, fadhigayguna Burco ahaa in badan. aad iyo aad waxaan u jeclaysanay inaanu helno maxay ahayd toy Habarjeclo guud ahaan goobaheeda iyo goboladeedaba aan wada tagno. socdaalkii dhul badan baanu ku soo marnay. maantana waxaanu la kulannay oo nagu soo dhaweeyay halkan magaalada dusheeda Habarjecladii reer Ceerigaabo. aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa, waanu idin mahadnaqaynaa. waynu isu degaynaa, waynu wada hadli doonaa, waynu isu warrami doonaa, xogtaynu isweydaarsan doonaa. aad iyo aadna waanu idinku mahadnaqaynaa soo dhaweynta nagu soo dhaweyseen. gabagabadina waxaa gudida loo soo galbiyay gudaha magaalada iyagoona halkaasi kulamo kula qaadan doona waxgaradka, odayaasha iyo cuqaasha beesha ee deegaankani.